wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda UNDP ayaa deeq lacageed oo maalgelin u qaybisay 20 qof oo isugu jira soo saarayaasha iyo ka ganacsatada girgirayaasha dhuxusha marxiya. ujeedada maalgelinta ayaa ahayd sidii loo dhiirigelin lahaa ganacsatadani sidii ay u soo saari lahaayeen girgirayaal tayo leh kuwaasi oo dhuxusha marxinaya. mashruucani oo in muddo soo socday ayaa madashii lagu guddoonsiinayay lacagahani waxa ugu horreyn ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda deegaanka Caydaruus Muuse iyo waliba mas'uul ku hadlayay afka hay'adda UNDP Cabdi Abokor. maanta halkan waxaan isku nimi in lacag wasiirku guddoonsiiso 20 qof oo runtii deegaanka wax weyn ka geystay shaqo weyn ka wada. 20 qof waxay isku jiraan ka ganacsato girgirayaasha dhuxusha marxiya iyo soo saarayaasha. lacagtan aanu bixinayna wuxuu qayb ka yahay mashruuc ay wasaaradda wadaan hay'adda UNDP. mashruucaas oo runtii ujeedkiisu yahay sidii loo yareyn lahaa isticmaalka dhuxusha qoys ahaaneed. hawsha mashruuca dhuxusha oo muddo dheer soo socday ilaa iyo waxaan xasuusanahay imika 10 sano muddo ku dhow ayuu mashruucan socday. waxyaabo fara badan oo waxtar ah ayuu dalka u sameeyay. muddada 10 sano imika ah waan xasuusanahay markii la saxeexay xagga la saxeexay waxa 2012 bay ahayd marka imika 10 sano ayuu yahay. mashruucaas waxa la yiraahdaa Proscal baa la yiraahdaa afka qalaad lagu yiraahdaa laakiin waa mashruuca la xiriira dhuxusha la xiriira isaga iyo mashaariic kale oo waaweyn oo dalka ka socota. dhankeeda waxa iyaduna madashaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shugi Xaaji Ismaaciil Baandare oo ku dheeraatay faa'iidada mashruucani leeyahay iyo waliba sidii looga faa'iideystay intii uu socday. wax maanta halkan waxaynu isugu nimay wax weeyaan marka ugu horeysa inaan runtii idin hambaliyeeyo oo aan idin mahad celiyo. ilaahay baa mahad leh inaad ka shaqaysaan oo dumarka ka shaqaysta ama ragga ka shaqeeya ama kuwa soo saaraba aad tihiin markaynu ka hadlayno girgirayaasha beekhamiya dhuxusha. muddo dheer baan imika soo wadnay mashruucan 5 sanadood ba soconayay imika gabagabo ku jira kama yara 20 kun xabadood inaynu qaybinay soo saaray sameeynay tababaro lagu qaatay gobolada dadka looga yeeray loogu tagay lagu tababaray. maantana gabagabadii buu inoo taagan yahay marka waa ilaahay mahadi in girgirayaal aynu nagu sameeyno gacanteena ku sameeyno marxalado kala duwan soo maray inaynu runtii maanta kunkii ugu dambeeyay gacanta lagu hayo oo aynu kunka qaybin doono sida ugu dhaqsaha badan la insha Allah. waxa halkan iyaduna jirta inaanu maanta halkan in mar hadaynu isugu nimi in faraqabsi yar oo qolana ay kaga faa'iido qolada soo saarayaashuna kaga faa'iidaan inay ku iibsadaan qalabkii ay alaabta ku sameeyeen girgirayaasha ee dhoobadii laha birtii laha hawlaha laha qolada kalena kaga sii iibsanaysay iyaga oo ay gacanta kale iyaguna kaga soo iibsanayaan dabatana suuqa hadii Allaah ku sii iibin doono biidnillah inaanu halkan isugu nimi. ma aha lacag buuran oo aynu leenahay waa mashaariic waata laakiin waxa weeyaan wax yar oo isleenahay ku dhex wareegto oo qof walba intiisa yar midnaha ku soo iibsado alaabtii uu wax ku sameyn lahaa. idinkuna dumar ahaan waan arkay dumarka aad u badan idinkuna aad hadii Allaah kaga iibsataan qolada soo saaraysa hadii Allaah yiraahdo. dhankooda waxa iyaguna madashaasi ka hadlay ganacsatadii la maalgeliyay kuwaasi oo sheegay inay soo saarayaan girgirayaal tayo leh kuwaasi oo laga maarmayo in dhir badan la jaro. wasaaradani aad buu xog qabatay run ahaan wayna kaalin gelisay wayna soo qaaday girgirayaal hore wayna siiyeen iyo alxamdulillah waanu intii horena aad baanu ugu gacan qabsanay oo lacagtayadii wali alaanka ka hayna oo ku maal gashanay. marka wasaaraddan ay madaxda u tahay shukri aad bay u mahadsan tahay. Amiin Maxamed Axmed telefishinka caalamiga Universal Hargeysa.